kulanti wanaagsan daawadayaal iyo saaxiibayaalba meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena toddobaadka iyo Toronto oo idinkaga imanaya telefishinka caalamiga ee Somali Cable Studio-hiisa magaalada Toronto. daawadayaasha qadarinta iyo qiimaha mudan laho wanagoo idinku bariidinayna hadba xilliga iyo xaaladda aad ku jirtaan. magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Xasan. barnaamijka toddobaadka iyo Toronto hayaa barnaamij aanu ku qaada dhigna guud ahaanba wararka khuseeya Soomaalida waxaanuna waraysiyo kala duwan la yeelanaa haldoorka iyo aqoon-yahanka Soomaaliyeed kuwooda ku sugan dalkan Canada iyo kuwa booqashada ku yimaada. daawadayaal iyo saaxiibayaalba barnaamijka toddobaadka iyo Toronto ee maanta ayaa waxaanu ku qaada dhigi doonaa warar iyagu ka imanaya gobolka Shabeellada Hoose ee dalka Soomaaliya oo lagu sheegay inay shaqaaqooyin dagaal ka jiraan taasi oo waraysi dhinacyo badan taabtay kala yeelanay garyaqaan Maxamed Abukar oo loo yaqaan Geetano oo kamid ah aqoon-yahanka ka soo jeeda deegaanadaasi. garyaqaanka ayaa wuxuu nagu soo booqday studio-hayaga galbeedka magaalada Toronto waxaanuna waxyaabo badan kala qaybsanay xaaladda iminka ee deegaanadaasu halka ay ku sugan tahay iyo sababaha keenay inay shaqaaqooyinkanu noqdaan kuwo soo noqda. mudane ku soo dhawo barnaamijka toddobaadka iyo Toronto. magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Xasan. ودوام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكساد تري وعبد الله ومحمد هي منطقة ويدي وكان برمي حالة كتاجن ساعة وقت هذا الجو كجرو شو الله هو سجارهان دجانك مركا يوحي العديرة. وهاجاج مدن وحتى aqoon-yahan ku xeel dheer xaaladda siyaasadeed ee dalka. xagaagan dhexdiisa ayay ahayd waqtigii isugu keen dambeysay ee waraysi kala yeeshay dhibaatooyin iyo dagaalo sokeeyo oo jiidaha ka soconayay. bal xaaladda guud ee gobolka Shabeellada Hoose iminka muxuu yahay? xaaladda horta waa xaalad uu ka socdo dagaal inkastoo dagaalada marna ay qaboobaan marna ay kululaadaan. waxa hadda isbedel horta aagii dagaalka markii hore ku ekaa deegaanka lambar konton hadda gobolku dhan uu ku fiday oo ilaa mataqaanaa maxaa la yiraahdaa shalamboodi inta ka shisheeyso hadda dagaalka ka jira. waxay isbedelay hadda waxaa ugu weyn oo hadda mataqaan ugu muuqaal weyn jidka weyn oo isku xiro oo afgooy ilaa marka oo markii hore mataqaana mar boqolada ay haysan jireen qolooyin mataqaana kusoo duulay dagaalka kusoo duulay hadda waxaa gacanta ku wada qabtay oo jidkii wada dhan mataqaana haya ciidanka deegaanka oo daafac halkaa kaga jiray. waxa isbedelay marka wadooyinkii baa mataqaanaa maxaa la yiraahdaa saa isu bedelay oo kontaroolkii ciidankii deegaanka galay. midda kale haddana beerihii markii hore howlahooda ay socdeen marka way hakadeen. dagaaladii mataqaana xoogooda hadda wuxuu ku aruuray magaalada marka hadda mataqaana dhinac gaaban iyo hadda dagaal ka socdaa dhinacaaba isugu mataqaana magaaladii ka cakirintahay maan meelaha kale way ka bannaan tahay. marka xaaladda guud ahaan deegaanka horta waa saas. degmooyinka kale sida Baraabay Qoryooli waa iska sidoodii oo nabad kama jirto colaad kama jirto waa dad mataqaana la kordhagay. wahagaag garyaqaan Geetano waxaad ka dhawaajisay in ay goobaha iyaga ama wadooyinka muhiimka isku xidha caasimadda dalka Soomaaliya Muqdisho iyo gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan marka iyo inta u dhaxaysa afgooy ay ku sugan yihiin sida aad hadalka u dhigtay ciidamo beeleedyo. maxay yihiin ciidamo beeleedyadaas? ciidamadaas waxay kuwii markii hore dagaalada waxay socdaan 4 sano waa kuwii markii hore dagaalka ay ku bilowdeen oo dagaalka ayaga bilaabay oo deegaankoodii markii mataqaana la qabsaday oo beerihii la qabsaday magaalooyinkii la qabsaday waa dhalinyaradii kacay ciidankii markaa kacay oo dagaalka bilaabay oo meelo badan hadda xoreeyay waa kuwaas mataqaana kuwa horta deegaankaas hadda aan tilmaamay goobaha aan tilmaamay kuwa qabsaday waa ciidankaas oo dagaalka bilaabay sababta ku bilaabeen waxay ahayd waa la xoog baa deegaankoodii iyo beerahoodii lagu qabsaday. wahagaag
deegaanada iyada ah wararka ka imanaya waxay sheegayaan in uu dagaal dhex marayaan maleeshiya beeleedyo gaar ahaan loo nisbaynayo beesha biyamaal iyo ciidamo halkaa ku sugan bal haddii aan garanay beesha biyamaal oo adigu aad ka mid tahay waxgaradkooda iyo odayaashooda maxay yihiin cidda kale oo ay la dagaalamayaan waa beelo horta ka yimid deegaanada dhexe oo maxaa la gobolada dhexe ka yimid oo isbahaystay markii hore isbahaysi weyn watay markii dambena isbahaysigooda u kala furfurmay laakiin ka helay mataqaanaa taageero iyo mataqaanaa maxaa la yidhaaha garab ka helay ciidamada dowladda ciidamada qaranka oo gobolka ku sugnaa ay gacan ka helayeen waa dadkan deegaan maxaa la yidhaahdaa gobolada dhexe sida gurceel iyo maxaa la yidhaahdaa dhuusabareeb iyo cadaado iyo waa dadka deegaanka ka yimid weyn hagaag magaalada marke ee caasimadu ah gobolkan shabeellada hoose ee shaqaaqooyinka socdaan waxaan la soconnaa in ay maamul dawladdu ay dhistay uu ka dhisan yahay isla markaana ay ciidamada amisom iyo ciidanka Soomaaliyaba ay ku sugan yihiin sidee bay ku dhici kartaa oo dadkan daawanaya aad kala qaybsan kartaa in beelo ciidamo metelaya oo ka kala socda sida aad sheegtay kuwa gobolada dhexe ka yimid iyo beeshan biyamaal ay deegaanka isaga ay ugu dagaalamaan ma ay ciidamadii nabadgelyada ee dawladdu ay goobaha dhigtay nasiib daro horta jawaabtaan mataqaanaa dadka qaarkii waxaa laga yaabaa inay maxaa la jawaabta ay run u qaadan waayaan mise caalamkana ciddii maqasho waxa weeye ciidankii dawladda ay meesha geysay wuxuu noqday horta ciidan beeled buu noqday wuxuu ka koobnaa hal kalaan buu ka koobnaa halkii kalaan uu ka koobnaa ciidamadii oo idil mataqaana maxaa la yidhaha waxay la safteen dadka hadda aan tilmaamay oo gobolada dhexe ka yimida oo kusoo duulay deegaanka bimaal kusoo duulay yay la safteen marag ma doonto weye waa la wada ogyahay horaan u sheegnay dadka meesha degana mataqaanaa ujeedo ciidanka meesha joogay waxay noqdeen ilaa haddeer waxa weeye waa kuwa taageera oo garab taagan ragga dadka aan sheegay oo ka yimid gobolada dhexe meeshay mataqaana maxaa la yidhaha ka dagaalamaan duulaanay soo qaadaan kuwa haddaan aan tilmaamay duulaankooda waa kala bixbixin doonaa markay duulaanka soo qaadaan oo la jebiyo waxaa duulaan soo qaada ciidanka dawladdu tabaabidooda wato artillerigooda wato xoogooda wato yaa mataqaana bimaal hor istaaga mataqaana dib u celiyo وأنت وصار. وهاجاك مدن قريقان دولة الصومالي يجيبهم بدلك الصومالي دجال كيسوكي كده وحلقات مبادئ فدر الكأي حلقاتي بيش بيمال وحي كم تهاي دولة قبليات كالصوماليات كونفور قلبي الصومالية ومدحوينة إمام البلا واحد كل ذي حب نصر إمام كم ذا ما هي تهسوها الدجال لازم أصلا نقنقونيان مربح هدي الصومالي فدر القاعدة دولة قبليات كاسنات كم تين horta waxa weeye dagaaladan waxay la dhammaan laayihiin oo la joogsan laayihiin dowladda waxaa madax u ah madaxweynaha hadda Soomaaliya waxa weeye waa xasan sheekh waxa weeye waa horta mataqaana shakhsi aan ka gambanin oo aan ka xishoonin oo aan ka wareegin garabsiinta uu garabsiinayo maxaa la yiraahdaa dadka hadda aan tilmaamay oo ka yimid goboladaas marka asiga dagaaladan wuxuu rabaa ilaa in kuwa soo duulay ay guul helaan markaasuu rabaa inay dagaalada joogsadaan ilaa nimankaas mataqaana dagaal lagu jiro la celinayo yur la leeyahay ma joojinayn dagaalka ciidankii dowladda taagan ciidankii baa dagaalamayo waxaa la rabaa in dagaalada aysan marna dhammaanin ay ku dhamaadaan keli guul ay gaaraan kuwii duulaanka soo qaaday way qabsadaan deegaanka biimaal inay qabsadaan beelay qabsadaan maamulka qabsadaan markaas keli waa la rabaa in la yiraahdo dagaalada waa dhamaadeen laakiin hadda ma ogola madaxweynaha inta ka hor dagaaladii bilowga markay ahayd oo la soo bilaabay deegaanka biimaal laga bilaabo laanta buur ilaa laga geeyo mataqaana shalabood intii magaalo iyo tuulooyin ku yiile dabaa la wada qabadsiiyo madaxweynaha maalin kama hadlin
maalin ma oran war maxaa dhacay maalina waxaa la dilay hal maalina waxaa la wada dilay 8 nabadoon oo biimaal hal maalin la dhigma taqaana oo wala si xun loo dilay madaxweynaha waa kan hataa mar aan dhihin allah u naxariisto sawir allah idinka siiyo marna muusoron waa masiibo in la dilo 8 nabadoon hal meel la wada dhigo meydkooda si xun loo galo waa masiibo hadday tahay rabbaani iyo hadday tahay midaas mataqaana binaadamka sameeybo madaxda meeshaas waxaa waajib ku ah inay muujiso inay ka xun tahay masiibadaas xasan sheekh waa ilaa maanta ma oran odayaashaas allah u naxariisto dadkii sabar allah idinka siiyo marna ma uusan oran magaalooyinkii la wada gubay marna ma uusan oran maxaa la yidhaahda war hala joojiyo waxaa la barakiciyey dadkaas meesha deganaayo dhan wixii deganaa waa la barakiciyey duurkay wada galeen mataqaanaa dumara meeshii ku wada foorshay caruura mataqaanaa kanaaca u dhintay gaajo u dhintay haraad u dhintay madaxweyne maxamed waxay u jirtaa 50 kilomitr meeshay dhibaatadaas ka dhacayso madaxweynaha maalina kama hadlin maalina ma uusan oran war dadkii barakacay xaggay ku sugan yihiin أبدا واحد العرنا مرة هو الشاقي وهذا أنا أقصر علينا مركي تجارة إذا عن المجال جو لجوي وحاجة أنا بركنت عيدك الدولة ده جوي والأرض الدولة دي بتكتي وزير كريمها جود عبد الكريم ما تقنا حاجي حسين تجي قرتي يلي أنتان وأنا وان هنا وان حقيقي لنا عيدك الدولة ده كدم بيو وحن بحين أنا مقدوب إلى هذا والسبب أنا مركز وحنقول جوابنا ورمقدوب هنقول جوابي ورعيدك السنة نوقلي dadkii mataqaana mas'uulka ka ahaa saraakiisha ciidankii laga qabto mata maxkamadda la geeyo lama yeelin arrin weyn oo dhacday waxay ahayd ciidankaas generaalkii ay hoostagayeen mataqaana generaal waafo oo generaal qaafo markuu arkay dhibaatada dhacday isay u dhacday markuu arkay iyo maalinta aan sheegayo wasiirka arrimaha gudaha markuu tagiyay Soomaalidu dhan joogto قبيل هانا لو يمد دري هبيه ولا يمد جنرال قافو ويستاغ فرتو استاغ فرتو كرو قاضي وحييلي أنا بما وحن ربا عفش إنا ويدي بيولو يعفيه محويل وحويل دباتي العضي يساي وحود عين مركو أركب بينو آدم أهان وحنوصل وعلي الوالو عفنية واكو عفن بلنا قاعد وحير علينا دجال دم بينا بما كسر قاعد يا بلنا دجال كسر قاعد مبح مركو دجال الله ورتوح وين ونوع عسوي مدحوين حسن شاب وعربا إلا دجال زي جوكستان إن بما للجميع دجال كنا نفسه مركز وكيله دجال الله هذا أرنتان هذا دجال هذا يسوع أسبوع هذا ده كان شيء جاي مركز وكوسي meel walba laga soo xiray waxay wax ka heli jireen badda waxa laga xiray badda markuu arkay madaxweyne xasan markuu arkay cidaas inay arrinta ku adkaatay iyo ciidan kala soo diray oo mataqaana maxaa xamar marka soo geliyay oo ciidankii biimaaro nimankan gacanta ku qabtay oo rabay inuu meesha ka saaro iyo hor istaag cidda mataqaana maxaa yiraahdaa hal wada hadlo intii ay sheegay kama wada hadlay dadkii la laayay weligiis kama u sanadin hadda wuxuu leeyahay hal wada hadlo ma taqaana maxaa dagaal hal jooji hadda uu leeyahay hal wada hadlo hadalna wuxuu ku imaanaynin mar hore yaa ma taqaana 9 jeer la fariistay 9 jeer mar walba biimaarka wuxuu soo jeedinayay hal ma taqaana maxaa la shuruud oo 9 qodob ka kooban haddii la fuliyo dagaalku waa joojinayna haye oo la saxiixay ما لا يجري أو ما لا فلنجر مركي وجود بيسي وحي جرت دار كتاب قرآن عن تصاري أو يرهدم وانا قبلنا وحي متقنا بمال وضربي وقبلنا دقال كانت تشوجي مدحوينا حاضر وهم حسب مركز معلم تاس أبوي وشري حسن شيخ حاضر بوها ووقع معلم تاس شرودوين كيلا قاضي شرودوين كيلا كلا صحيح ذي ودارت الله مري وعلى فلنين
وأوكيها كم وصلنا هادو ليه هالدجال هلا جوجيو هلا وضع هلا ورسيل وضع هذا الشلي متقارن واد فردي مركي محلي را دجال هذا لوجه شيء شردو يمكن لوجه شيء ولا فلوه ما هذا لا مركي دجال هذا وحيد جوكسل غير هذا تري ودي ويجي سوحوي مدحوينها الصومالي وحو ربا إلا وإلا إبنا لجميو مركز دجال هذا بعد ما ذي اللي وحقاك halka igu qabo Getano odayaasha la laayay ee sideeda sheegayso iyo waqtigan ay dagaalada noocaasa dhaceen ninka ciidamadu hogaaminaya aad leedahay General Gafo waxbuu qirtay aad leedahay meen ahayn xilli hore oo in waliba odayaashaasu ahayn kuwii lagu laayay buur xakaba ay sheegteen al-shabaab maxaa cadeynaya inay dawladdu waxa ka dambeysay odayaasha laysay horta mid inta waa inta kullu horta ku sheegtay waa saas way odayaasha kuwaas way laakiin mid al-shabaab ma sheeganin al-shabaab marna ma sheeganin ana hore ka hadlay weli waxaan yiri wixii xun waxaa ma laha arrintan al-shabaab kaba dambayso maxaa yeelay sababta aan u irayno waan cadeeyay waxa weeye al-shabaab ma taqaana weligood lama arag ayagoo hal kalaan hal mataqaan beel target ka dhigto hore uma dhicin nimanka aan la dilay saddex baabuuray kala saarnaayeen saddex baabuuraa laba saddex hal laga soo wada dejiyey qabiil ahaana loo soo wada baxsaday beel ahaana loo soo wada bixiyey maaha dhaqan lagu yaqaano mataqaana al-shabaab ma aha al-shabaab daaficis igama aha laakiin dabeeca lagu ogyahay maaha inay hal beel ay mataqaana target ka dhigtaan hore uma dhicin kow hore uma dhicin in mataqaana maxaa la yidhaha al-shabaab dadka mataqaana maxaa la yidhaahda ay silciyaan waa la sheegay qorta ay gooyaan waa la sheegay inay gacan ka gooyaan waa la sheegay inay toogtaan laakiin ma silciyo odayaasha waa la silciyey madaxa laga burburiyey hal nin keli yaa la aqoonsaday markii mataqaana meydkooda loo tegay inta kale lama aqoonsan karin waa la silciyey waa la burburiyey waxoodii dhan dabeeca lagu yaqiina ma ahayn al-shabaab marka al-shabaab kow haddana maxay ahaayeen waa nimankii hogaaminayay dagaalka socday waa raggii hogaaminayay ahayd marka al-shabaab ma ahayn al-shabaab mana sheeganin mana mataqaana maxaa la yidhaahdaa uma soo qaadan dowladdaa tiri al-shabaab baa ka dambaysa maya kama dambayn al-shabaab laakiin caddayn aad haysaan ka reer ahaan in ay ciidamada dawladdu ka dambeeyeen miyaa jirta adoo soo gaabinaya ciidanka dawladda mataqaana horta dad waxaa isbahaysid adag yaa jiro oo ah ciidanka dawladda iyo maleesida mataqaana qabiilkan hadda beerahan aan tilmaamay oo meesha ay ka yimaadeen aan tilmaamay maleesidooda iyo ciidamada dawladda isbahaysi baa ka dhaxeeyo waa isbahaysi mataqaana isla weyn oo iswato marka ninka mataqaana kuwa baabuurka ka dejiyey maxaa la yidhaahdaa nimankaasi ma uusan wadin markaa dareyska dawladda ma uusan wadin laakiin dad la yaqaan oo maxaa la yidhaahdaa ah ciidankaas maleesidaas beelahaas aan sheegayo ka mid ayay ahaayeen وهجاج جتنا واحد هالجريقان كم إذا جريقان ذو صومالي لوجا باهيها إن سماها كتليان إذا الدولة فضلوا الكدلك الصومالي مدحوينها أمد بقى ذو سجدين يسوى ميد علوس مجرى وحبيرات أصلي هذا الدجال هذا كسو نقنقون يقبل كشبه الله ذو هوسه مدحوينها جمهورية الدولة دبوي كجيستي إن الدجال هذا سو استاجن هبيرات مجرى ورتاد أنت يعني ري أنت يعني ري وأنت المامي وكفرتها ممرين هدي متقال مدحوينها قابك ورمي تلابوينك وكقال الدجال هذا waxay muujinayaan mataqaana maxaa la yiraahdaa dawladnimada asay u bay ku kooban tahay maxay wasaaradda gaashaandhigga kama aysan hadlin ciidan mataqaana la laayay laayay oo la og yahay saraakiishi ay wataan meesha ay taagan yihiin wasiirkii arrimaha gudaha uu yimid yuu qirtay oo yiri waa ciidanka dawladda wax dhibaatada haystay laakiin xilligaas xilli hore ahayd aan ka wada hadal ibn وعيد المقدار بلوغ التجارة يعني بلوغ التجارة يعني هذا واحد ويجلس محل كوعتين سامت قلنا محل إلى الدولة كله كذا
dowladdu waxay lug ku yeelatay maalintii ciidankaas dhibaatadaas u geystay haddii qalad dhacay u ahaa ciidankaas haddii la qaban lahaa oo mataqaana wax la xelay wax maxkamad laga saaray wax darajo mataqaana laga qaaday wax hadday ahaan lahayd dowladdu kuma lahaan laakiin dowladdii ciidanka ma bedelin ma helin ma dacweynin halkoodii bay taagnaayeen halkoodii bay ka shaqeynayeen taasaana muujinayso inay dowladda ku lug leedahay dagaalada socdo waa hagaag beeshan aad ka mid tahay ee biyamaal waxay ka mid tahay dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed soomaaliya waxay leedahay madaxweyne waa shariif xasan sheekh aadan haddiiba maamulkaas ay hoos yimaadaan deegaanadaas iyagii muxuu yahay doorka ku aadan maamulkaasi maxayse ka qabteen horta ciidanka haddaad weysid doorka ku mataqaana maxaa la yidhaahdaa ay leeyihiin sida uu leeyahay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya waxa weeye kow horta in asiga uu gacanta ku qabto dhacdooyinka ka dhaca meesha asigu madaxweyne ka yahay oo maxaa la yidhaha maamulkan koonfur galbeed oo dhan waa inuu asiga gacanta ku qabto waa in asiga uu la socdo waa in asiga looga dambeeyo martaa ma dhicin madaxweyne shariif xasan ilaa haddeer maxaa la yidhaahdaa shabeellaha hoose wax tallaabo uu ka qaaday ma jiro haba yaraatee tallaabada uu qaaday wax weyn oo mataqaana maxaa maamulku saabsan oo wuxuu mataqaana dhiirageliyey kuwii aan sheegay dagaaladeeda meesha ka wadeen inuu maamulkii gacanta u geliyo uu maamulkii ayaga u badiyo uu maamulkii u dhiso ayagii uu heshiis leeyahay waa xagga dagaal midaan dambe hadweel isla dagaalkii ah xasan maxaa la yidhaahdaa shariif xasan wax tilaabo uu ka qaadi karo male waxaad moodaa in mataqaana la xakameeyey oo la yiri ha ka hadlin taa ha samaynin taa ha qabanin shariif xasan waxaan ognahay in la yiray maxaa la yidhaahdaa ciidan ma geyn kartid shabeellaha hoose ciidan mataqaana ka yimid labada gobol baayo bakool ma imaan karo shabeellaha hoose amarkaas in la siibo horena u geen waana laga dhabeeyey ilaa haddeer shariif xasan hal askari oo ka yimid labadaas gobol shabeellaha hoose ma keena waxaa la yidhi mataqaana shariif xasan ma bedeli kartid maamulkii ay dowladda dhistay oo hore u shaqaynayay ma bedeli kartid haddeer markii qaylida aan ka badanay hadalka aan ka badanay magacii qofkii guddoomiye ka ahaa shaqsigii guddoomiye ka ahaa gobolkii maxaa la yidhahdaa maamulkii gobolka oo hore u dhisnay dowladdaa dhis wuxuu bedelay kii madaxda ka ahaa wuxuu ku bedelay nin rabeeshi ah kuwii kala soodii u dhisan yihiin asiga madaxweyne ah waxaa meesha ka shaqeynayo maamulkii oo dowladda ay dhista meesha joogo yuu kaga dambeeyaa xasan sheekh maxaa la yidhaahdaa shariif xasan amuurahan intii asiga welo meeshaas imaanin jid erid bayba lahaayeen hadda markuu yimid waa qasmeen oo asiga madaxweyne ah wax uu ka qabanaya male asigii howshiisii iyo mas-uuliyaddiisii iyo wixiisii mataqaana la dardaraya kama hadlaayo laakiin isla markiina wuxuu gacan siinayaa maxaa la yidhaahdaa beelaha mataqaana bimaal la dagaalamayo muxuu ku siinaya odayaashii bimaalow ku yiri ha la joojiyo dagaalka heshiiskii haddaay aan tilmaamayo dhaarta loo maray waxaa ka mid ahaa in dagaalada maamul la sameeyo kadib markay dagaaladii dhammaadaan oo laga heshiiyey sagaalkii maxaa la yidhaahdaa shardi oo laisla gaaray oo labada saxiixday markii la wada fuliyo waa maamul hala dhiso shariif xasan mar alla markii mataqaana shirka asiga laga soo baxay markii maamul u dhisay dadkiina wuxuu yidhi dagaalada hala joojiyo asigoo xiilo ah asigoo mataqaana ay ka muuqato maxaa la yidhaahdaa beelahaas mataqaana garab siinayo marka shariif xasan hadii weydiisay shariif xasan meeshaas wax uu ka qaban karo kama qaban wax kaliya uu qabtay waxa weeye inuu gacan siiyo kuwii bimaa la dagaalamay inuu gacan siiyo wuxuu rabaa inuu meesha dejiyo uuna ku dadaalay inuu meesha mataqaana maxaa la yidhahdaa siiyo majority meesha ay ku lahaadaan uuna ku dadaalay maamuluu dhisay oo ayakii u badan waan ka diidnay
bimaal waa diiday waxaa maamulkaas ma soconayo mana socon waa joogsaday ilaa mataqaan 6 bilood maamulkii waa socon waay marka shariif xasan daad weydiisay arrintaas waa taas hagaag waxaad eedeysay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo dawladda federaalka ahayd labadaba balse waxaa jira garyaqaan eedeymo idinkana ka beel ahaan idinku imanayo oo la sheegayo in aad caawimaad dhaqaale iyo mid military ba aad ka heleysaan deegaano kale oo ka mid ah dalka Soomaaliya arrimaha iyaga maxaa ka jira أنا صرت وابين وحكى بجرها ما يراتين وحكى بجرها هدي بماله كان مهل لها حمر قصر لها هدي كان مهل لها محالي هذا عرفت أس وحكى بجرها عرفها أس وحال ما تقال لا رباه إلا مرن هبابيو فكرتها يوم تقال ددوينها الصوماليا سيوحو جرام بيت الله وشهم mid aan hor ugeynaan ku soo celinayo meeshaan Soomaaliya saan u ognahay kalaan loo qabsay waxaa jiro 4 kalaan 4 qabiil iska dhalaa oo weyn uma tagan umbrella weyn ah maxaa la yiraahdaa ama soo qaba siyaabkii waa dir darood habi digir barif 4taas 3 ka mid ah koonfur galbeed ay joogaan وأكبر قروا وحيلين قبل الله يقان منطقة محلية قبل الدحيل منطقة هيران شبلها الدحيل ولا يقان كلانا يا محل بنتلاند وحاس منطقة كلانا منطقة أبدا بيدوي أنت كلانا أبدا محل هذا السؤال جبلان كلانا منطقة نجرم لكن نصيب دهر بمال كلامك وكنت ترسيها مسكت بس مسقوم ترسله مجبور كفر لكن حاقبتي وحاقبتي علم تقالنا مع السيدة كد على محلي مركب سيدة كد على محلي يدافو سيدة كد على حرالي سيدة القوة دي متقالنا هذا متقالنا محل مقالي يروح عندهم هذا الأساسي محل توفيق سيدة الربي محل درتي ماشي متجوغان بمال ماشي ودقين شبالها هوسه أفرد جيسار لك السوق هذا رب يدورين عليك التاريخين منطقة كوي شيخ محل حسن شيخي دت يبعث بين عليك التاريخين مالها معين مالها در ومال منطقة واحد السوق ربنا واحد تذكرنا يا مال حق إله كله ليه متدنمدي سو منطقة كجوا هالكاس كمحلي iyo mataqaana dee foostaas oo kale xaq ilaahay kid mataqaana ka noolyihiin iyo midnimada waa mataqaana maxal yiraahdaa waa la kaliyeystay waa la ciriiriyay waa la gumaadiya marka dad mataqaana hadana kaalmo ka helna ma jirno mid kali hal mataqaana maxal maamul yaa u haynaa abaal oo aan mataqaana maxal yiraahdaa هدي وحقل اللي يراهو وبنتلان ومحط بنتلان واحد دافعين محل يراه توفيق دقم يروح هذا الأساسي وهذا دلتي يلا دمعة دولار وقاضي سيدفو يوم محل يراه حرالي يمكن كل دولار وقاضي بنتلان هو استعتي ترمي وأكو فرحسنا وأولا نوهاي ومرك كلمة كري وأنهلنا وطاع توفيق الدفاعي توفيق متقان لبدبادية حق إلهي كبدبادي لكن بنتلان سبب النقطي بنتلان وعبال الله هايو مركز أنا بدي دونا هجاج أبو درجتان الدجال صون نقنية السكية يحل دجال كي قبيل دلك الصومالي وكرم ماضي واللي هي ميليشيات كأشيء يسيء بيش بيمال ما حيتها سببته أقوين أجعش إن اللقي بسدتك الصومالي ذي نداوني. هو توعوي وربحن مدبان هبا إن المنطقة أنا محل عن رشيدو. هو الدجال دي أفرسانو يجي السعودان. أفرتان سنة بيلا عن شيء مركي هوري وحيكون دجال أمرين أهاني منطقة أنا كنت دجال ماين. ولا بحبحي وبيلا بدنا منطقة أنا كبحي.
ciidankii dowladoo dhisnaa oo markii hore gacan ka helayaan ilaa hadda weel ay ka helayaan waxaa dhacday askartii ku jirtay oo ka tirsanaa beelo kale ka tirsanaa inay ka baxaan waxaa ka baxay dadku ugu xigo madaxweyne madaxweyne xasan sheekh dadku ugu xigo dhalinyaradii waa ka baxeen hal maalna 63 dhalinyaro oo sarkaalkoodu la socdo qoraalada soo qaateen ay meeshan la soo xiriireen waxay raayeen gudubna rabnaa anaga dagaalku ku jirno ma dad fuleeyahay ma waa kuwa geesiyiinta oo mataqaana runta hore ku jira waxay yiraahdeen waxaan ogoleen waan inaan la dagaalano dad shacab banaan koor mataqaana deegaankooda joogo oo deegaankooda looga yimid inaan laayno raali ilaahay kama anagana ma rabno waa ka baxay waa meeshaada ku jira way hadleen generaalada kiyalku mataqaana aan sheega kaasaas ugu baxay cidda amarkii taa qabatay waxay keeneen niman maxaa la yiraahdaa caloosha u shaqaystayaal ah oo la soo ururiya dagaalkii la soo geliyay waa dad tababar ku leh meesha dagaalkii ku dhamaadeen waxaa dhacdo markii dagaalka ay soo galaan oo la dilo waxay ka tagaan caloosha u shaqaystayaasha meedkooda way ka tagaan ma qaadaan tababar ma helaan oo cararaya ayaga meedkooda way qaadanayaan laakiin kuwii lacagta ay siiyeen ay soo geliyeen ma qaadeen meedkooda website soo geli website ku jira waa buuxan ilaa hadda ku jira hadda ku toodaysa waa dad lacag soo siiyay oo mataqaana maxaa la yiraahdaa meedkooda meesha lagu tagay marka dagaalada nimankan horta mataqaana xaaladda hadda meeshay maraysaa foolxumadaas ay hadda yeelatay meedka meesha looga tagay looga cararayo hore waa ka cararjooda meedkooda laakiin dhif yahay mataqaana meeshaas meelahaas aan sheegayo nin u dhashay meedkiisa marmar la heli jiray laakiin badi ahaan waa dad ay lacag soo siiyay number conton maalna mataqaana ay ka tageen dhowr iyo 20 wala beel kale ahay dadku waa shaqaana beel kale ahay ma ahan maxaa la yiraahdaa dadkaas ma ahan marka waxa waaye hadda ay dagaalada inda xumadaas iyo xumadaas ay yeesheen sidii way ku socdaan hadda maxaa la yiraahdaa sidaan ku yaryar mataqaana arrinta maraysaa madaxweynaha wuxuu rabaa ilaa in maxaa la yiraahdaa bimaal hubka laga qaado maxaa la yiraahdaa la jiriyo mid ugu socda taabo hagaa gabagabada barnaamijkan soo gaarnay bal waxaan jeclahay gariiqan inaad la qaybsatid dadka Soomaaliyeedna daawanaya gobolka isagii waa gobol bad iyo barinba aad barwaaqo u ah oo ay dadka Soomaaliyeed kulli indhaha ku hayaan xaaladda beeraha ee deegaanadaas adoo soo gaabinaya waqtigan xaadirka maxay yihiin horta beeraha waxa loo dagaalamayo dagaalada waxay u socdaan waa beeraha oo dadkan aan sheegay maxaa la yiraahdaa oo duulaanka ay hayaan oo dhan horta beeraha u weyn beerihii maxaa la yiraahdaa dagaaladaas ka socdo dhinacna way ka haystaan dhinacna waa laga kiciyo maxaa la yiraahdaa waxay rabaan meel kale inay qabsadaan inay meesha kusii adkaadaan ku nagaadaan waa loo diiday laakiin mid baan rabaa inaan mataqaana maxaa la u sheego dadweynaha oo u sheego dowladda dhexe oo aan u sheego maamulka maxaa la yiraahdaa koonfur galbeed oo ah in si fiican loo ogaado in dadkan dagaalamaya beeraha hadday gacanta ku hayaan in aan loo maalgelinin in aan loo diiwaan gelinin in aan gacan lagu siinin maxaa yeelay dhulkaas xoog bay ku qabsadeen xoog bay ku haystaan hadda haddii la yiraahdo ha loo maalgeliyo ha loo diiwaan geliyo ujeedadeed waxa weeye ayagaa leh dadkii deegaankii waa laga qaaday taa hadday dhacdo ha la ogaado shabeellaha hoose marna ma degayo bilbilaa kalen ma degi doono dagaaladan ma joogsan doonaan waxaan u sheegaynaa iga waxaan u sheegaynaa hay'adaha bixiyo deeqaha bixiyo waxaan u sheegaynaa dowladda dhexe wasaaradda beeraha dowladda dhexe aan u sheegaynaa wasaaradda maxaa la yiraahdaa maamulka koonfur galbeed aan u sheegaynaa yaan la diiwaan gelinin beeraha dagaalka ka socdo oo mataqaana lagu wada dhammaaday yaan loo diiwaan gelinin kuwaan mataqaana xoogga ku qabsaday hadday dhacdo waxa weeye waa
hiilacad oo loo hiiliyey reer mataqaana mudug loo hiiliyey waad mataqaanaa waa hiilacad oo laga hiiliyey biimaal mana ogolaan doono midaas mataqaana waxaan u sheegaynaa qaramada midoobay igaad intii ku lug leh oo dhanba dowladaha mataqaana etoobiya kenya jabuuti iyaanu sheegaynaa yaan la diiwaangelinin beerahaas yaan loo diiwaangelinin beerahaan mataqaana dagaalka wado waa digniin waa codsi waa ogeysiis yaan la yeelin ma ogolaan doono وهاجك أجري قنجتان وجب برنامج كان سو قارني سؤال شو قدام بسجل علينا كويتي واحد تاعي أدلك الصومالي اسمه يهرب مربل عرن أيا وقت كان كسرعان أيا وحايقو مقالة هيد إن اسم الله تبي جرون ك نمبر كونتون قبل كشبه الله ده هوسه جرون كاس اسمه إمك حجيبه مريا وقت جرون كاس واجرا وجرون اسمه وجرون شقين هايو وشقين لها وفكشن وهو مثل كان وحكد من ملك مالما هذيك أسبوع كهر والله فوري دور ديارة كسر دقي والجوجي محل هذا مدحوينا حسن شيخ كقيلي حسن شيخ عيد الصدري حسن شيخ حري محل هذا قبل له دم محل يبور عليه جوهر الله بلد وين الله متقود حاله بيدوال ما بقول كجال لكن كوالدي sababta loo diiday wax weeye waxaa la diidan yahay in mataqaanaa biimaal uu meesha ka helo dhaqaale waa cunuqabateen wey waa cunuqabateen marka aan leeyahay mataqaanaa maxaa lahaa shariif xasan bil loo bixi lama yaqaan markaan leeyahay kama usan hadlin maxaa la yidhaha aeroboortkan ku yaallo meesha asigoo madaxweyne ka yahay maamul kasta madaxweyne uu ka yahay ku yaallo kama usan hadlin odayaasha biimaal way u tageen ما بيهم متقارنة محل هلا فري هلا حرب مدنا كما وصلنا مركب وحوي السيء مع تقارنة محل هذا حسن شريف حسن يو مدحوينها الصومالي حسن شيخ وعسكر القواعد وضد وضد السعودة ضد متقارنة هو إلا وإلا إن متقارنة قبل كاس بما كل إليان وبما متقارنة قبل كاس كقاعدان دجان كاس كقاعدان يكون ترجران وأنا أسعد دوني لكن أيك مدة يكون تاون أيربور كانوا وحوي حتى وحرين هاي دولة دي وحرتي عيدا كيسي ولا سكتني كان عيدا الدولة دي كيس ما كهر واكين ولا ربحين لكن ما كنت بابا هذا الناي وحنا الدولة الساعة دانا مثلا أيربور سن مثلا تقال أنا كعند وداي عندنا وحرين هذه هذا يوم بان ستمودني وما سنت ما تقال ما وحوي أرد ما ميساس أنا ما كان ماشي والله أقصر التلفزيون وحنا أفهيانك ورجوك تضع محل شبه هوس أكبر مكان مرة المكان دي أكيسان أفهيان هانو والله أفهيان هانو وهجاج داوديال يا صاحب يا البميل كستو جوجتان وحن سو قارني جبجبة برنامج كتضباط كي تورنتو يدين كجي إيمانيي استوديو التلفزيون كعالمي جه الصومالي كيبل القلبيت كمجال تورنتو هي دلك كندا برنامج كهيا وحو كصاب سنة ورئيس دنيا بدن تابطي أو عن لي شيء أفيين كشبه لذو هوسجري كان محمد أبوكر oo loo yaqaan geetaan oo kamida aqoonyahanka iyo gariiqaanada Soomaaliyeed ku dhaqan dalkani Canada waraysiga iyaguna gabi ahaanba wuxuu ku saabsanaa shaqooyin dagaalo dhaliyay oo dhawaanahan ku soo cusboonaaday gobolka Shabeellada Hoose ee dalka Soomaaliya oo gariiqaanku iga waramay xaaladdu iminka halka ay marayso dadka nadaawanaya iyo gabi ahaanba kuwa ka qaba aragti kala duwan ayaa waxaanu ka codsanaynaa in ay nagula soo xiriiraan emailka barnaamijka oo ah toddobaadka @somalicable.tv وهدي aad ka qabto fikrad ka duwan fikradda gariiqaanku uu waraysigiisa ku bixiyay mar kale aan ku celiyo toddobaadka @somalicable.tv برنامجك waxaa idin soo saaray anigoo Maxamed Cabdullaahi Xasan ah barnaamijkan barnaamij la mid ah inta aanu isugu iman doonana dawadayaasha aanu aad ka u jecelahay waan si toos ah idinku duuno xarunta dhexe ee telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada London ee cariga Ingiriiska intaas iyo nabad galiyo